xiriir noocee ah ayaa ka dhexeeya hay-adda nisa iyo ururka al-shabaab waa warbixin sir ah oo ifinaysa xog halis ku ah ummadda soomaaliyeed iyo qarannimadooda warbixintan waxay soo bandhigaysaa xidhiirka ka dhexeeya madaxda hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa iyo ururka al-shabaab warbixintan waxaan idinkugu soo bandhigaynaa dukumentiyo caddaynaya wadahadallo dhex maray mid ka mid ah saraakiisha ugu sarraysa hay-adda nisa oo lagu magacaabo cabdulaahi aadan kulane dadkana u yaqaanaan jiis mareexaan iyo sheekh ibraahim fiilow oo ka mid ah madaxda sare ee ururka al-shabaab ahna waaliga al-shabaab ee jubbooyinka cabdiraxmaan waxa uu ka mid ahaan jiray mooryaantii gobolka gedo xilliyadii dagaalladii sokeeye wuxuu soo noqday ilaalada gaarka ah ee korneel barre hiiraale dukumentiga aan hayno waxaa ku cad shirqool loo maleegay madaxda sare iyo malaayiin dollar oo laisdhaafsaday loona xawilay ururka al-shabaab haddaba nisa ma waxay hantida qaranka ku bixinaysaa kobcinta awoodda al-shabaab si ay u xaqiijiyaan dana gaar ah mise al-shabaab ayaa amniga dalka ka shaqaynaya al-shabaab waa urur ay caalamku u aqoonsan yihiin argagixiso kana dagaalama soomaaliya halisna ku haya waddammada gobolka geeska afrika sida dalalka kenya soomaaliya etoobiya iyo jabuuti si gaar ah dalalka gobolka ee ay ku xoogaysteen waxaa ka mid ah dalka kenya oo dhowr jeer ay weerarro ka geysteen xogahan waxay caddaynayaan sida al-shabaab muhiimad u siinayso inay wax ka ogaato shakhsiyaadka sirdoonka soomaaliya ka tirsan ee la shaqeeya sirdoonka kenya iyo sida hay-adda nisa ugu dadaashay inay wiiqdo maamulka jubbaland iyadoo heshiis la gelaysa ururka al-shabaab weli ma isweyddiisay ciddii ka dambaysay dilkii allaha u naxariistee injineer yariisow duqii magaalada muqdisho ahaana guddoomiyihii gobolka banaadir jawaabteeda waxaad ka helaysaa sheekada dhex martay labada mas-uul ee ka kala tirsan nise iyo ururka al-shabaab iyagoo weliba u sheekaysanaya si qaab qaraabannimo ah waddadii injineer yariisow uu ku baxay waxaa loo qorsheeyey siyaasiyiin uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha dalka soomaaliya mudan xasan cali khayre madaxweynaha dawlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyana halkaa ka ogow nisa waxay al-shabaab malaayiin dollar ku siisaa oona fududaysaa shirqoollada ay ka fuliso magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya iyo gobollada dalka inta badan weerarrada ka dhaca magaalada muqdisho waxaa la sii og yahay nuuca gaari ee qarxi raba laakiin qaraxaasi lama fashiliyo mararka qaarkood waxaa suuragal ah in aagga uu qaraxa ka dhici rabo mid aan ahayn in xoogga amniga la isugu geeyo si shacabka loo jahwareeriyo al-shabaab lacag laguma siiyo keliya inay fuliyaan shaqadoodii arxandarrada ahayd laakiin waxaa sidoo kale malaayiin dollar lagu siiyaa inaysan wax howlgal ah ka fulin magaalada muqdisho maalmaha qaarkood taasoo ujeeddooyin gaar ah laga leeyahay sida bisha barakaysan ee ramadaan ama muddo cayiman sida 40kii maalmood ee qaraxyadu hakadeen cabdulaahi kulane wuxuu 25kii bishii maarso 1 milyan iyo bar dollarka maraykanka ah u diray sheekh cabdiraxmaan fiilow oo la sheegay inuu markaa ku sugnaa bu'aale waa heshiis cusub iyo howlgalka cusub maalmaha soo socda ayaana la qorsheeyey in qarashkaas la bixiyo howlgalkiisa la fuliyo sida caadiga ahna hay-addii bixisay qarashka howlgalka ayaa cambaarayn doonta qaraxa dhaawac iyo dhimashada ka dhalata shacabka soomaaliyeedna ayaa iyaguna sida caadiga ah maydkooda aasan doona laakiin ilaa goormee ayay sii socon doontaa shirqoollada noocan oo kale ah weerar waxaa amra xogta weerarkana keena rag sarsare sida ay aaminsan yihiin askarta u dagaalanta al-shabaab ee la qalday xogtaa heshiiska uu ku jiro ayaa lagu weerargeliyaa dhallinyarada iyagoo rumaysan inuu kitaabka alla u dhintay waxyaabaha halista ah ee dukumentiga ka muuqda waxaa ka mid ah in wadashaqaynta al-shabaab iyo nisa ay gaartay heer sirta ay kala qarsadaan madaxda hay-adda oo taliyaha guud ee nisa fahad yaasiin uu si gaar ah ula xidhiidho madaxda qaar ee al-shabaab halka madaxda kale ee nisa ee ku xidhan madaxweynaha dawladda soomaaliya iyaguna xidhiir dhow la leeyihiin madax kale oo al-shabaab ah waxaa barbar socday weerarrada ka dhanka ah maamulka jubbaland in xafiiska madaxweyne farmaajo uu amray in la qoro ciidamo beelaysan oo daacad u ah taliska haatan ee filla soomaaliya
ciidankaas waxaa loo qorsheeyey saanad gaar ah magac bixin gaar ah oo ka duwan ciidammada haatan jira waana ciidammada sida gaarka ah loogu qorsheeyey in etoobiya eritareya u soo tababaraan maamulka madaxweyne farmaajo khilaafaadka al-shabaab dhexdooda ee ay baahiso nisa laguna daabacay twitter-ka hay-adda sirdoonka qaranka iyo warbaahinta qarankaba waxay ahaayeen kuwo siyaasad qorshaysan laga lahaa waxaana lagu ilaalinayay xilka saraakiil al-shabaab ah si aan looga shakin inay xidhiir la leeyihiin madaxda sirdoonka soomaaliya loogana beddelin boosaska ay hayaan al-shabaab iyo nisa waxay hadda noqdeen laba urur oo dantu midaysay halkii ay ka ahaayeen koox argagixiso ah oo shacabka laynaya iyo hayd qaran oo shacabkeeda difaacaysa waxaana saraakiil laga eryey shaqada nisa ay qireen inay heleen caddaymo ku filan si loo soo eedeeyo taliya hay-adda nisa fahad yaasiin laakiin taas beddelkeeda waxa uu fahad yaasiin xilkii uu ka qaaday taliyihii sirtaasi sheegay waxaana laga ruqseeyey shaqada ciidanka wuxuuna ku baxsaday si lama filaan ah xilli la qorsheeyey in la xidho ama la dilaba si sirtaas iyo caddaynteeda aan loola wadaagin haydaha dabagalka iyo la dagaalanka argagixisada caalamiga ah haddaba waxaan sugaynaa inta laga fulinayo shirqoollada qorshaysan oo halis ku ah jiritaanka soomaaliya iyo badqabka muwaadiniinta iyo madaxda dalka hoggaamisa iyo kuwii hore ee u soo maamulay intaba shacabka soomaaliyeed ha baraarugo hana ka feejignaado masiibada haysata